be invited here today. I've been a friend of Somalia for over 25 years. And I can say, as an economist, international economist, I know of few countries that is endowed with such incredible potential. Somalia, yes indeed, has the potential to become a regional powerhouse and also to become a strong driver of reforms, as we'll talk about in a moment, that are profound and historically have not happened before. One thing I can say from my experience of advising many countries, it's what sets a country apart. It's what is different about a country, not what is similar about it. When one thinks of Germany, one thinks of industrial capability. If you think of UK, I think of financial services industry. So Somalia, like many countries, is landlocked on one side, but sea-locked on the other side. Both land and sea are impediments to wider integration unless strategic investments remove those obstacles and those boundaries. And this, I think, is part of the very real challenge that we have ahead of us. If Somalia had been landlocked next to Germany, you'd had a very different future. If you'd have been sea-locked next to Singapore, you have a very different future as well. But look where Somalia sits, and look what's going on. China is expanding its influence. Djibouti. The Saudis are building up their industrial capability along their coast as they diversify away from oil. The other Gulf states are building up their capability on this side of the Red Sea. There's a huge potential and greater interest in this space, in this region, in this beautiful country than I have known in my lifetime. And that is a huge opportunity for all of us. garowshiyo iyo garansho ay yeesheen muddo 60 sano ku dhow oo golihii ugu horeeyay ee qaran ee dhaqan ku maamula maanta la daah furayo waxaan leeyahay tallaabadaasu waxay mudan tahay inaan dhammaan idhaahno it's better not too late, better late than never. waxaa si gaar ah doonayaa inaan ugu mahad celiyo wasiirka Jamaal Xasan iyo dadka la shaqeynaya wasiirada kale maamulayaasha hadda halkan qaar inala joogaan waan ogahay juhdiga ay ku bixiyeen inay maanta meesha aynu soo gaarnay daafurka ilaahay iyaga sabab uga dhigay waxaan isku dayay inaan salaanta iyo mahadnaqa ka bacdi idhaahdo waxay isku raacsan yihiin dadka dhaqaalaha ka faalooday adduunka what we call a conventional scholars iyo dadka maamula dhaqaale labaduba inaanay suuragal ahayn dal haddii aanu laba wax ama saddex wax helin inuu dhaqaalihiisu koro ama kobco maxaa hooye iyo aababa waa marka hore waa nabad weeye meelaan nabadi jirin dhaqaale koraya ama kobcaya ma jiro annagoo daah furaynaa golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed marka labaad waxaan leeyahay wasiiro iyo xildhibaano iyo dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay kulligiin waad mahadsantihiin waxaan gaar ahaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo dadka Soomaalida ah iyo kuwa aan Soomaalida ahayn oo aqbalay inay qayb ka noqdaan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo aqbalay inay nala dhibtoodaan nala dhisaan qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay maantay inkastoo ay dhib tahay in dadkoo dhan laga dhaadhacsiiyo inay maalin weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed sanad ka hor iyo xoogaa markii aan shaqada bilownay waxaa dhibaato noqotay inaan ku qancino dadka Soomaaliyeed
ajendaha ugu weyn ee dawladdu yeelanayso waxa ay tahay inaan ka shaqeyno arrimaha dhaqaalaha inaan ka shaqeyno in deynta mustaqbalkana la ka cafiyo inaan ka shaqeyno nidaam daah furan oo isla xisaabtana inaan ka shaqeyno inaan aqbalno meel musuqmaasuq ka jiro inaan horumar aan yeelanayn sanad iyo bar kadib waxaan aaminsanahay tusaale inay tahay shaqada maanta halkan ka socota inay tahay annaga keliya ma ahan laakiin aqoon-yahanadii halkan ka hadlay iyaga laftooda maanta inay arkaan tallaabooyinkii aan qaadnay sanad iyo bar ka hor inay yihiin inaan rabno inaan ummadda Soomaaliyeed ee naga dambaysa aan wax uga tagno inaan dhisno dal ka duwan kii hore dhisidda Golaha Dhaqaalaha Qaranka ma aha keliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabanno ma aha inaan dalkeena horumarino waxa ay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabanno waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteena furno waxay tahay inaan aqbalnay in nala fiiriyo haddii laalaab iyo khiyaano jirto in wax laga qabto waxay tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib u falgalno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan waxay tahay inaan aqbalnay caqabadda ugu weyn oo hortaagan dal in la bedelo inay tahay inay siyaasiyiintu aqbalaan in la bedelo anaana maanta idin ballan qaadaya inaan diyaar u nahay wax laga qabto waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimid si aan u aragno waxaan hore loo arki jiray si aan u aragno mustaqbal carruurteena ay ugu noolan karaan in dalkeena uu meel wanaagsan ku yaalo in dadkeena ay yihiin dad shaqeeya in adduunyada kale dadkooda ay duqoobayaan kuweenana ay dhalinyaro yihiin in meel walba oo aad dalkeena ka fiiriso ama kalluun ama beer ama shidaal ama gaas ama meesha aan ku naalno ay tahay fursad dhaqaale waa wax la wada ogyahay waa wax qof walba Soomaaliya ka hadli karo waxa aan laga hadli karin waxay ahayd sidee baa looga faa'iideystaa tallaabadii ugu horeysay waxay tahay meesha maanta aan fadhino waxaan u yeeranay dadkii ehelka u ahaa inay nagala taliyaan sidaan uga faa'iideysan lahayn aqoontaas ama khayraadkaas aan leenahay dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya kuwa halkan fadhiya marka waxaan rabaa inaan mid u sheego waagii hore haddii uu ra'iisul wasaaruhu idinla hadli jiray waa laga soo gudbay arrinkaas maantay waxaan aqbalnay nidaam ku dhisan daahfurnaan maanta waxaan isu keennay rag iyo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo aan rabno inay nala taliyaan wax nala hagaajiyaan laakiin ceebteennana ay noo sheegaan